السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما أنت وحن كان لنا موضوع مهم وكسب سن حبك إن دورك قادنا سيدة أو في عن أو مستقبلك الله بسكر الدولة في عن أو وارتا عدالة وحيو بهانت هاي إن أن فيرنا ودمرك له سيد الشقيان يوحيابه أنا من نجا قلبه maadaama aan nahay Soomaaliya waxaan lagu tiriyaa inaan nahay dad diinta aad ugu dheer dad salaada masjid walba wadamada Yurub iyo Mareykanka ka dhisan dad Soomaaliya inay joogaan kuwa dukada ama kuwa maamulka ah markii la maqlo diinta Islaamka waa synonymous with Somalians macnaheedu waxa weeye markii laga hadlo diinta Islaamka waxa la soo xasuustaa dadka Soomaaliya waa arrin fiican maadaama diinta aan sidaa u jecelnahay haddana horumarka nolosha iyo ibtan haysato waxaan nahay dadka ugu badan waxa uu wacnaan karaa waxa waaye ilaahay quraankiisa wuxuu yiri inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar salaada waa in ay ka reebtaa waxyaabo badan oo fiican marka qofka markuu salaad dukanayo hadduu physically uu dukanayo oo jirkiisa uu dukanayo iyo markii uu khushuuc u dukanayo uu soo yahay oo la kulmayo ilaahay oo uu rabo in waxyaabihii dunida oo ka tagay oo uu aaminsan yahay inuu ilaahay communication fiican sameeyo marka ninka uu ka kaaftoomay khaldaadkii isbedel ayaa ku dhacay spiritual marka taa ayaa badanaa naga maqan waxyaabaha khaldaadka waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddaan Soomaaliya nahay dhaqan ahaan waxyaabo waxaa jira qofka uu asiga shaqaysta la yimaado dambi ha noqdo ama waxyaabo abaalmarin oo fiicnaan iyo waxyaabo qofka uu ku dhashay uusan asiga mas'uul ka ahayn laakiinse lama kala saaro wax walba oo dhalaala ayaan raacnaa wadamada aan muslimiinta ahayn sida wadanka aan ku noolnahay oo kale waxaa arkaysaa ceeb ma aha qofka handicapka ceeb ma aha qofka maaragtay maskaxdiisa uu shaqeyn aan ahayn qof wise ah laakiin Soomaaliya qofka doqonka ah ama maskaxdiisa wiiliya oo maskaxdiisa uu shaqeynayni sida caruurta kale waxa laga yaabaa inuu ku dhashay waxa laga yaabaa in caafimaad daro ay tahay laakiin mujtamaca waxa uu ka helayo waxa waaye in la xaqiro ama la caayo qofka doqonka ah qofka dabaalka qofka handicapka curyaanka qofka maaragtay wax yar oo dhibaato haysato dhibaatooyinka way badnaan karaan marka dhibtii ayaa badatay maaragtay ficilkii iyo sida mujtamaca oo dhan ayaa wuxuu noqday in aan isku wada raacnay inaan noqono dad gardaro ku socda oo mujtamaca uu kala eexda dadka kala saysiya waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ka saliima aan lagu ogeyn diinta Islaamka marka wixii ayaa isku marka hadda waxaan rabnaa mustaqbalka si loo helo nabad fiican dowladnimo wanaagsan oo waarta waa inaan ka fikirnaa waxyaabaha muhiimka ah la sameyn karo halkan waxaan ku soo qaadanayaa ilaa iyo 10 qodob oo muhiim ah haddii aan ku dhaqaaqno ay keeni karto problemka maanta jira in laga baxo mustaqbalka waxaa idin xasuusinayaa problemka markaas jira kaliya hadduu xal loo keeno xal markaa looga bixi karo waxaa dhici karta problemkii inuu soo noqdo laakiin hadduu xalka yahay mid lifetime oo inuu soconayo loogu talagalay marka cabsi male generation kan hadduu baxo generation kale yimaadana waxay u imaanayaan nidaam system nidaam dhisan sharci dhisan markay soo galaan ma laga yaabo inuu problem soo noqdo taa waxaa waaye 100 sano kadib markii ay dagaalameen Yurub oo ay dhibaato badan kala kulmeen waxay sameysteen nidaam wanaagsan sharci wanaagsan sharcigii ayaa dadkii asugu dhashay ay ku raaxaystaan marka haddii aan rabno in dowladnimada inay noqoto mid 4 sano kaliya ay shaqeynayeen oo mar walba marka dowlad ka soo timaado shacabkooda waa in aan sameynaa waxyaabaha soo socda marka waa inaan ilaah ku kalsoonaano diinta Islaamka ayaa muhiim ah in aan mar walba afka aan ka haysanin laakiin niyaddeena iyo ku dhaqankeena inaan ka muujino si loo helo xal joogto marka صح no okay marka haddii aan rabno in uu xal ka fiicnaado waa inaan sameynaa nidaamka aan dhisanay inuu asiga hoggaanka noo qabto ee aanu shakhsi hoggaan qabsanin shakhsiga waa bini aadan kan aan u aragno inuu yahay madaxweynaha ugu fiican ama wasiirka ugu fiican
وبني آدم وحنا نكون كراميد أسرع قلبنا وفيعان وحنا نكون كراميد مركز هربا عن فعنان أو جيد كارله وحنا نكون كراميد ظروفتي قبيل كيو كهنتي إنه عدالة دار كل نحن مركز لكن هدو نظام جرودات ومن كله حياة لما أركز الشخصي مجعي يو ماجيسا وحلفيرنا كلية نظام كي أصعنا مركز تصالح وحكمدا مثلا ببرتا تتكسر مستي برتا hubka baari kartaa markay airportka hadduu soo marayo ninka madaxweynaha waddanka ka ah iyo haddii kan tuuga labadaba ay soo marayaan isku si uu baaraya u sheegaya maxay la birta aqoon mu laha shakhsi marka nidaamka Soomaaliya oo dhan haddii aan ku soo koobno sida birtaas oo kale in qof walba uu soo maro nidaamkii ama magaci uusan bini'aadamkii yeelanin magac iyo qabiil ee lambar u leeyahay roll number tusaale waxaa dhici karta wadamada qaarkood markii dhibaato la kulmay kala kulmay in imtixaanaadka markii la qaado macalinka iyo ardayga inay favorite isku noqdaan ama ay noqdaan isku qabiil ama ay noqdaan dad isku eexan kara yaa waxa sameeyay ardayga markii imtixaanka ay dhameeyeen qof walba imtixaankiisa magac ayaa laga qaaday waxa la siiyay roll numberka macallimiinta saxaya ma la socdaan warqadaas ay saxayaan qofka iskale marka waxaad ku leefaysaa inay si cadaalad ay u saxaan xataa hadduu yahay wiilkii asaga wiilkiisa hadduu yahay uma eexan karo marka nidaam sidaas oo kale haddii aan sameyno oo systemka uu fiican yahay qof walba qofku yahay uu marayo marka dhibaato ma ka imaanayso tan labaadna waxa waaye bini aadamka oo dhan meel walba ay joogaan waa isku duruufta waxaa wada gaajada markii gaaja ay timaado qofka acsaabtiisa kacsan وانا هدو يهي نين عقل الله هدو يهي نين ماركتا عن عقل الله هدو يهي بروفيسور مركي جاجا وقت اسكسي اي ودخمان مركا waxaa laga yaabaa inay qarxaan inay wax nacaan inay maaragtay ay ku kacaan waxyaabo laakiin dadku hadii gaajada laga qaado waxay imaanaysaa in xitaa hamigii siyaasadda inuu yiraahdo wadamo badan ayaa sidaa ku dhaqma wadamada Yurub aan arkayno waxaa go'aan lagu gaaray inaan jirin qof gaajo maaragtay tariiqa u jiifa oo meesha ku dhintay halka qofka aqalka aadadaalina usmeel marka qofkii dhulka jiifay marka hore wadanka oo dhan cashuurtii la aruuriyay qeyraadkii waa in suuqaya in shacabka oo dhan ay ka kacaan gaajada markii shacabka ay gaajada ka kacaan dadku way shaqaysanayaan markii caafimaadka asaasiga ay helaan waxyaabaha nolosha asaasiga markii dadka la wada siiyo kadib waxaa dhacaysa in dadkii qaarna ay aamusaan maaragtay stability ay soo noqoto marka qofkii rabana inuu wax maamulo dadka oo dhan farax loo qala dhigay markii gaajada waa muhiim talabaadna wadan markuu kalsoonidii shacabka ay ku qabeen dawladii maamulka haysa hadii meesha ay ka baxdo mar walba waxa imaanaysa si loo soo celiyo kalsoonida way aragtaa Soomaali shacabka Soomaaliyeed kalsoonidii ayaa baxday maxay qof walba haduu madaxweynaha uu fiican yimaadana mar walba wuxuu ka dhashay ilaa dhulka kama soo bixin wuxuu ka dhashay qabiil marka qof walba isla markii wax qalbiga ku soo dhacay waxay tahay madaxweynahan qabiilku ka dhashay waa kee waxaan ka soo qaadaynaa inuu yahay nin qabiilista si walba noqdo haddii 80% ay isku raacaan hataa 20 mucaalad ku noqonaysa ayaa markasta soo bixaysa maxaa yeelay qof walba waxaan is leenahay kalsoonidii aan ku qabnay ayaa adag marka dawlad walba oo timaada waa inay kharash iyo canshuurta iyo wax oo dhan inta horumarka la gelin lahaa inuu ku koobnaado marka hore sidii shacabka kalsoonida ay ku qabaan loo soo celin lahaa taasoo ah in la sameeyo nidaamka hadda aan sheegay iyo cadaaladii iyo inay dadku ay ka arkaan muraayad in wax fiican ay u socdaan markay waqti qaadanaysa markay soo noqoto maamulka in dadkii la maamulo marka sahal bay noqonaysaa tan ku xigtana waxa waaye in haddii qof shakhsi ama group qabiil marka ay mar walba ku dhacdo cadaalad daro dhinaca maxkamadda ama amni xumo oo aan wax loo qabanin wixii marka waxa laga yaabaa inay sii fido Soomaali waxa waaye oo dhan waa 10 milyan oo warka sii gudbiya hadana social media soo baxay markay cid la gardareysto cidii xumaadkii ay qaaday waxa laga yaabaa inay wixii sii socdaan marka waxa muhiim ah in cadaaladda inay noqoto sida hore soo sheegay qof walba qofka intaas oo yar xumaan sameeya in uu leeyahay ciqaabtiisii xataa madaxweynaha waa iyo wasiiradu waa inay bilaabaan haddii ay dhacdo qofka ugu soo dhow walaal oo kala ah in isla markiiba ay marsiyaan cadaalad marka dadka markay arkaan meesha cadaalad fiican ay ka socoto dadkii waxa dhacaysa in ay
كنت أي كلسون كخبان عدالة ماشي كجرت أمني ماشي كجرت إلا جارو إن هبينكي وحول بعض على وقت بركيس دجالان كان واحد درستنا إنه عقاب ولا كل ما كي اللي قدر هنا إنه وطن في سيج على هذا محيل أو أركو عدالة فعلا كجرت تا يا ماشي كبحث هدي أي صون نقول وعبارته waxyaabaha soo dhan waxa ka sii muhiimsan shacabka sahawr u soo sheegnay waa ayaga caruur ah dhalinyaro ah si weynaada marka waxbarashadii ay soo qaateen iyo maamulkii meesha nidaamka waxbarasho ee Soomaaliya waa inuu noqdaa nidaam ka tarjumaya horumarka aan ahayn nidaam kaliya waxyaabaha adduunka laga barto xoog saaray duruufaha wadamada haysto way kala duwan yihiin wadamada Yurub waxa caruurtu waxay bilaabaan curious inay noqdaan inay rabaan in waxyaabo badan ay ogaadaan waxyaabaha muhiimka ah ayaa la ogeysiiyaa ayaa la socodsiiyaa مثلا waxa laga yaabaa caruurta in meeshii xoog looga saari lahaa inay xisaab iyo juqraafi kaliya ka shaqeeyaan oo meesha ay fadhiyaan in la baro sida uu shaqeyso warshadan sida wasaaraddu u shaqeyso marka mujtamaci oo dhan markii ay 8 sano wax barteen ayagoo xisaab iyo juqraafi wixiina ogaaday ayaa hadana waxay information ka heleen wadanka soo u shaqeeyo mar alla markii ay sii socdaan waa in la baraa waajibaadka ayaga saaran iyo xuquuqda ay u leeyihiin muwaadin ahaan waa meesha kaliya 12 sano markay soo baxeen qofka muwaadinka lagu soo saaro mid nadiif ah oo iskuul buu soo maray iskuulka yuusan barin kaliya luqado iyo waxyaabo computer loogu shaqeeyo in uu shakhsiyadiisa dhisaa dugsiga waxbarashada iyo barbaarinta macnaheedu waxa waaye in caruurtii la baro habka ugu fiican lagu noolaan karo maxay haddii aad mujtamaci waxbarashadii meesha ka baxdo aqoon aan jirin dadku dhacaan wuxuu noqonayaa sida fikirka sida xayawaan oo kale maxay yeelay xayawaanka waa ay meesha sharci kama jiro midba mid ku xog yahay ayuu cunaa marka bini aadankana haddii aan loo sheegin mar walba wax kama duwan marka waxa muhiim ah in kharashka aan gelino cashuurta la aroor in la geliyo si loo soo saari lahaa muwaadin fiican oo nadiif ah taana waxa waaye mid aad loogu muhiim ah waxa kaloo jira in sahur u soo sheegnay xeerka ciqaabta iyo maxkamadahana in ay noqdaan in qof walba shakhsi Soomaali ah inuu amisan yahay uu ka boqo kan kalena inuu og yahay kalsooni uu qabo wax walba oo ku dhaca in wadanka inuu aad u adag yahay wadamada Yurub iska daa dad qof dishanaana haddii xitaa isku dhacdaan oo aad maaragtay adiga aad kartaran tahay oo gacantaada ay gaarto iska xataa haddana dhiig ama qalab aad isticmaali laakiin gacanta ay tahay waxa laga yaabaa in process dheer inaad marto dib weyn uu soo gaaro waxa laga yaabaa lacag badan inaad bixiso marka haddii intaas aad martay dambi yar aad gashay waxa laga yaabaa shacabka oo dhan inay ku degdegin markii taa ay timaadana waxa imaanaya in la kala dambeeyo in la gaaro habeenkii 6 saac meesha socota inaan cidna u dhawaan waana sida diintu ay sheegtay oo muhiim ah dadku ay sameeyaan oo wanaagsan oo lagu dhaqmo waxyaabaha muhiimka ah in la hubiyo haween marka habkaas nolol iyo waxyaabaha hadda aan soo sheegnay oo dhan ma aha wax sahalsan oo wax u baahan wax barasho waa u baahan dad taacada oo wax u baahan waxyaabo badan oo wadan lagu celin karo laakiin intaas oo dhan waxay u baahan yihiin in wadanku inuu dhaqaale helo dhaqaalihii illa dhaqaale inuu wadanka yeesho Soomaaliya waxa la yiraahdaa kheyraad badan ay leedahay waa run laakiin kheyraadku wuxuu u baahan yahay maskax lagu soo saaro in la shaqeeyo marka ilahaas dhaqaale hadduu yahay mid ku xiran wadanka kale waxa laga yaabaa ujeedo inuu ka leeyahay Soomaaliya ujeedadiina waa in aad fulisaa si aad u hesho dhaqaalihi aad ku socodsiin lahayd waxa laga yaabaa wadanka inuu ku muujiyo inuu ku rabo horumarka adiga aad qoratay dhaqaale ahaan aad qorshaysay laakiin uusan dantiisa ahayn marka lacagta uu ku siinayo in ciqaab lagaaga dhigo in lagu dhaho anagana waxaan u baahanahay inaad lacagti meesha ku bixisid oo madaxweynahana shacabkan ka warahayna madaxweynaha duruufta ay ku kalifto marka waxa uu muhiimsan in inta danaha laga gaarayo 10 sano ugu soo reeb in laga fikiro ilaha dhaqaale Soomaaliya meesha uu muhiimsan oo laga sameyn karo sida beeraha kalluumaysiga maaragtay kheyraadka badda iyo shaqaale badan oo wax bartay soo in la abuuro marka howlahan waa waxyaabo qaab ka mid ah laakiin in la gaaro wadan la mid ah wadamada dunida horumaray dhan waxay u baahan tahay waxa ugu muhiimsan xanuunka muhiimsan waxa waaye adigaas dhageysta iyo aniga qofka hadlay labadeenoba inay naga dhaaracsan tahay waxyaabaha wadanka xuquuqda iyo waajibaadka naga saaran waa ilaaha naga dhigo kuwii
مستقبل كفكرة سيدي ودنك ونظام سنة وضع السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.